xiriirkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya 8 bilood kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo ay Turkiga hogaaminayeen ayaa Abiy Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud isku gacan qaadeen isla markaana kala saxiixdeen heshiis taariikhi ah oo la doonayay in lagu xalliyo khilaafkii muddada dheer u dhexeeyay ee ku saabsanaa xiriirka sii kordhaya ee Itoobiya iyo Somaliland taasoo ay Soomaaliya u aqoonsan tahay qayb ka mid ah dhulkeeda. Ankara ayaa door muhiim ah ka ciyaartay burburinta heshiiska u dhexeeyay Itoobiya iyo Somaliland kuna guuleysatay in labada dal midba midka kale uu ixtiraamo madax-bannaanidiisa dhuleed. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu hambalyeeyay labada hogaamiye sida ay isku afgarteen Arbacadii la soo dhaafay isagoo shir jaraa'id si wadajir ah u qabtay. Kalsoonida ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku qabaan dalkeena waxayna gaarsiisay marxaladda muhiimka ah ee geedi socodkii Ankara in soo bilownay 8 bilood ka hor anagoo ka wada gudubnay cadaawaddii isfaham darro. Waxaanu qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo inoo horseedaysa bilow cusub. Sidaas waxaa yidhi madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan. Nabadda iyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay ka qayb qaateen labada dowladoodba waxaan ku heshiinay baaq wadajir ah oo aan maanta soo bandhigi doono. Heshiisku wuxuu u gogol xaarayaa in Itoobiya hesho bad aad muhiim ugu ah dalkeeda oo aan bad lahayn iyadoo la dhowrayo madax-bannaanida Soomaaliya laguna ixtiraamayo dhulkeeda. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale ku heshiiyay inay meel iska dhigaan waxyaabihii horey loogu heshiiyay lagana wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaa barwaaqada labada dhinac. Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo deris ah waxayna leeyihiin dano wadaag iyo iskaashi oo noo horseedi doona mustaqbal barwaaqo ah oo ay gaarayaan labadeena dal iyo labadeena shacabba. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadaalka Turkiga. Soomaaliya sidii ay ahaan jirtay waxay ahaanaysaa saaxiib dhab ah oo ay Itoobiya leedahay. Sidaas waxaa yidhi Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan aaminsanahay in wadahadalladan wax ku oolka ah ee maanta ay nagu riixi doonaan sanadka cusub qulub saaxiibtinimo, iskaashi iyo wada shaqayn halkii aan mar kale isdagaali lahayn. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo dadka Turkiga iyo sidoo kale mudane Xasan Sheekh. Waxaan jeclahay in kulankani kusoo gabagaboobo guul labada dhinacba. Saas waxaa yidhi Abiy Axmed. Tallaabada xigta waxay noqon doontaa wadahadallo farsamo iyadoo Turkiga uu kaalin joogto ah ka qaadanayo geedi socodka dhexdhexaadinta.